kusoo dhawaada khiyaarta videogan kale waan idinku tusayo tusaalihii labaad oo simultaneous equation habkii looga shaqeyn lahaa anagoo isticmaalina elimination methodka. Marka waxaan rabaa inaan tusaalahan idinku tuso saan u isticmaali karno elimination method. horena substitution method waan idin soo tusay. Marka tusaalahan sidaan uga shaqeynayna waxaa weeyaan waa isla sida kii hore, laakiin markan waxaan rabaa inaan variable-ka y baan rabaa inaan eliminate gareeyo because x waa iska easy, because x hadaad inaad eliminate gareysid labada tan baad isku mid ka dhigi. marka times 5 aad kordhihi intana times 7 sifa 35 iyo tan ku soo baxaan, laakiin y xoogaa waxay u baahan tahay inaan adjustment sameyno, wax yar aan yar bedbedelno, but still waa easy. marka dib baan u qoraynaa equation-keena 7x plus 2y is equals to 47. saasna u qor 5x minus 4y is equals to 1. marka waan qornay labadeeni equation, dib waan u qornay. marka waxaan rabaa inaan y meesha ka saaro. marka haddaan rabo inaan meesha y ka saarana y baan isku mid ka dhigayaa. marka saan isugu mid isaga dhigayaa. marka inta waa 4 intana waa 2, marka tanaan 4 ka dhigayaa. ma fahanteen? marka intana 2 aan ku dhufanaya, intana 1 aan ku dhufanaya. marka kor equation-ka 2 ku dhufo, hoosna 1 ku dhufo. marka 1 hoos isma bedelayso. kor markaan ku dhufto 2 times 7 waxa weeyaan 14x. 2 times 2 waa plus 4y waa plus 4y. marka 4y is equals to 2 times 47 waxa weeyaan 94 weeyaan 94 ayna siinaysaa. marka intaa waa iska caddahay. the next thing waxa weeyaan 1ka inaan hoos ku dhufano. marka 1 times 5 waa iska 5x, waxba isma bedelayaan. minus 4y is equals to 1. marka sifa aan meesha y uga saaro, minus ma dhigi karo. haddaan minus dhaho aan kor equation-ka koraan equation-ka hoose ka jiro islama baxayaan. marka waxaan u baahanaynaa inaan dhaho plus. waan isku daraya labada equation. marka mid aha hilmaamina u fiirsada. marka qaarkood is not always minus inaad ku socon kartid. 19x marka haddaan isku daro labada 14 plus 5x waxaa weeyaan 19x. 4y plus minus 4y na waa iska 0. marka 0na lama qoro. haddaa rabtid inaad qortin waa iska qori kartaa, fine. anyway marka 94 plus 1 na waxaa weeyaan 95 waa 95 waa 95. marka hadda linear equation aan la soo baxnay fiican oo ah 19x inay la mid tahay 95. marka labada dhinacba 19 u qaybi, dhankana 19 u qaybi. marka waxaa noo soo baxaya x inay la mid tahay labada dhinacba haddaan 19 u qaybino waxaa noo soo baxay x inay la mid tahay 5. x-kii waan keenay, y baa hadda u baahanaa inaan keeno. marka y-ga waxaan ku keenaynaa labada equation aan haysano midkood un baan iska soo qaadanaynaa. laba equation aan haysanaa sooma 5x minus 4y, ama labada inaad soo qaadanaysaa. marka waxaan soo qaadanaynaa ini midka hoose aan iska soo qaadano. marka waxaan haysanaa 5x inay minus 4y inay la mid tahay 1. equation-ka saasay qoraysaa. marka x waxaan keenay inay 5 tahay. marka 5 times 5 minus 4y waxaa weeyaan waa 1. marka 5 times 5 waa iska 25. 25 minus 4y na waxaa weeyaan equal to 1. marka 25ka dhanka kala geey. marka minus 4y waxay la mid tahay 1 minus 25 because 25 dhanka waa positive, dhanka kala dhanka negative ay noqonaysaa. marka waxaa noo soo baxaya sifaan y bis dhanka uu reebno divide by first intaan being divide by waxa weeye waan kala jarno
negative 4y waxay la mid tahay 1 minus 25 waa iska negative 24 soo ma marka hadda waxaan sameynaa negative 4y inoo soo qabo negative 4y waxay la mid tahay negative 24 soo ma marka divide by negative 4 divide by negative 4 divide by negative 4 y waxaan ku keenay inay la mid tahay 6 marka x na waa 5 y na waa 6 marka solution keenu waxa weeyaan 5 6